Asalaamu calaykum asxaabta soo dhowaada. Bal ka waran adigoo wada highway ku socdo oo gaarigaada wato haddii diyaarad ay gaarigaadii ku soo duldegato. Muuqaalkan aad arkaysaan waxay shalay maqribadii oo arrintan ay ka dhacday county-ga ama degmada la yiraahdo Brevard County oo ku taala gobolka Florida, gaar ahaan wadada highway-ga la yiraahdo I-95. Abaara markii ay tahay 5:45 daqiiqo ayaa haweeney gaarigeeda iska wadato oo highway-geeda ku socoto gaarigan Toyota Camry-ga oo 2023 ah. Waxaa hal mar highway-ga ka soo muuqday diyaarad aad u malayso in ay soo deganayso sida muuqaalka aad ka aragtaan. Diyaaraddaasi waxa ay ku soo duldegatay gaarigii haweeneydaasi oo 57 jir ah ay wadatay. Diyaaraddana waxaa saarnaa 2 nin oo isku da' ah oo 27 jir ah. Diyaaradahan lagu barbarto ee test flight-ka la yiraahdo ayay ahayd. Marka diyaaraddii cilad ayaa labadeedii matoorba ku yimid waa ay shaqeyn waayeen. Markaasi kadibna waxay damceen in si degdeg ah ay highway-gan ay ugu degaan. Highway-gana waa xilli rush hour ah oo galab ah, isla markaana qof waliba uu shaqadiisii ka soo baxay amaba qaarna ay u sii socdaan oo wadadu ay mashquul ahayd. Marka hal mar ayaa waxa ay ku duldegatay gaarigaasi Toyota Camry-ga oo haweeneydaasi ay wadatay. Labadii nin ee diyaaradda saarnaa ee isku da'da ahaa ee 27 jirka ahaa waxba ma aysan gaarin. Haweeneydii sidoo kale gaariga wadatay ee 57 jirka ahayd waxaa soo gaaray dhaawac fudud oo isbitaalka ayaa loo qaaday. Arrintaasi waxay noqotay arrin la yaab leh in arrintaasi aysan sababin shil dad badan ay ku dhintaan kuwa kalena ay ku dhaawacmaan. Diyaaradda damage weyn ama dhaawac ayaa gaaray. Baabuurkana sidoo kale total loss ayuu noqday sida aad muuqaalkaba aad ka arkaysaan. Markaasi kadib waxaa baaritaan si wada jira u bilaabay ciidamada booliska ee highway-yada ilaaliya, NTSB-da iyo sidoo kale FAA-ga oo iyagu sheegay dhammaantoodba in baaritaan ay ku sameynayaan sababta keentay in diyaaraddan ay highway-ga ay ku soo degato. Haddaba adigu maxaad samayn lahayd haddii arrin noocan oo kale ah aad la kulanto? Way dhacday diyaarado horay wada highway ugu soo degtay markii cilado ay ku timid oo intooda badanna diyaaradaha yaryarka ah u badan. Haddii diyaaradda weyn ay ahaan lahayd ama rakaab sida ama xamuul kala sida waxay geysan lahayd khasaare aad u xoogan oo iyaduna waxaa laga yaabaa maadaama shidaal fara badan diyaaradahaas matooradooda uu saaran yahay in holac iyo dab weyn uu ka dhasho, isla markaana gawaarida wadada maraysa ay dhibaato soo gaari lahayd iyo dadka saaran. Laakiin maadaama diyaaraddan ahayd diyaarad yar, waxay saamaysay halkaasi gaari oo ay ku dul tegatay iyo sidoo kale diyaaraddii, laakiin gawaaridii kale ma aysan saameynin walow muddo saacada ah ay wadooyinka labada dhinacba I-95ka dhinaca soodka iyo weliba dhinaca kale ee wastigana ay xirnayd, isla markaana la doonaya diyaaraddaasi in meeshaasi laga qaado maadaama aysan ahayn meelihii loogu talagalay inay ku soo degato oo garoomada ahayd oo wadda highway ay ku soo degatay. Laakiin la yaab ayay noqotay in labadii qof ee diyaaradda wadayna aysan waxba gaarin. Waa amar Ilaahay, haweeneydii gaarigeeda ay ku dul tegatayna uu dhaawac fududi uu soo gaaray. Marka arrintaasi la yaab kale ayaan rabay inaan idinla wadaago. Aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. Waxyaabo kale haddii ay soo kordhaan stay tuned insha Allah waa idinla socodsiin doona.